بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذه المحاضرة waxaan kaga hadlaynaa insha allahu tacaalaa arrimo ku saabsan sixirka. shalay qayb baan ka soo hadalay, marka iminka hadda waxaan ka hadlaynaa halkan xukmu saaxir ama sixirka xukunkiisa iyo saaxirka diintu maxay ka tiri, iyo siduu ruuxu isaga difaaci lahaa sixirka isaga difaaci lahaa intuuna weli dhicinba, iyo hadduu ku dhaco siduu isaga daweyn lahaa. السحر من الكبائر في الشريعة الإسلامية. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله سبحانه وتعالى وماشي يقول الشياطين توي كفرين ويقالوا بين يعلمون الناس السحر، ضدك السحر كبران. وما للشيطان المنعون غرض. أرنت وكلي هي الشيطان كملعون كيه تعلمت ضدك أبري وحوي والسحر كأبري وحوي إلا ليشرك به إلهي إلا الشريك يلوي ولا قالوا بو. قال سبحانه وتعالى إلهي وحوي مخبرا عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. marka meeshan waxaa lagu sheegay in wamaa yucallimaani min axadin, ruux ma baraan baa layidhi labadaa malag, xataa yaquulaa ilaa ay ka dhahaan inamaa naxu fitnatun, annagu fitnaa nahay, falaa takfur ha gaaloobin. fayatacalamuuna waxay ka baranayaan minhumaa iyaga maa yufariquuna bihi, waxay ku kala geeyaan bayna almar-i xaaskii gabadhii iyo wa zawjihi zawjkiisa, ruuxii iyo zawjadiisa, ninkii iyo zawjadeedii. wamaa hum bidaariina bihi, waxbana kuma dhibaan min axadin ilaa biidn illah, ilaa idanka rabbi mooye. wayatacalamuuna waxay ka baranayaan maa yaduruhum, wax dhibaya, ila sixirku faa'iido ma lehe, dhib mooye. walaa yanfachum aan waxba anfacayn. walaqad calimuu waxay ogaadeen laman ishtaraahu, ninka iibsada aayadaha ilaahay, maa lahu fi laakhirati min khalaaq, aakhare inuuna kuba lahaynba yacni wax weeye nasiib. fataraa kathiiran min annaas, marka waxaad arkaysaa dad fara badan oo sixir yadkhuluuna fi sixri, sixirkay gelayaan. yadunuuna waxay u malaynayaan xaaraaman, waxay u malaynayaan inuu xaaraam yahay faqad, xaaraam keliyana ma uu ka wen yahay. wamaa yashcuruuna maba dareemayaan annahu lkufru inuu gaalnimo yahay. wadaalika mithaal ahaan ka caqdi rajuli can zawjatihi wa maxabati rajuli lilmar'ati wa buqdihaa wa ashbaha daalika, waxyaalaha ninka naagta lagu jeclaysiiyo ama laagta ninka lagaga furo, waxaasoo dhan ayay sameynayaan. bikalimaatin majhuula aktaruhaa shirkun, kelimooyin aan la garanayn oo badankeedu shirki yahay iyo dalaal. xagga shareecada islaamka maxaa xukunkiisu yahay? wa xaddu saaxiri alqatlu, saaxirka xadkiisu waxa weeye in la dilo, liannahu kafara billaahi, ilaahay buu ka gaaloobay. aw daaricu lkufri, ama wax kufriga u dhigmuu sameeyey. qaala nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: ijtanibuu ka dheeraada asabca almuubiqaat, tobanka muubiqaadka ah ee naarta dadka geliya. fadakara minhaa wuxuu ka tiriyey asixir, sixirkaa ka mid a 7 muhlikaadka. walmuubiqaatu almuhlikaatu ta halaagto weeyaan. rawaahu lbukhaarigaa wariyay xadiidka wa muslim. marka falyataqi alcabdu, addoonku ha ka cabsado rabbigii ha ka cabsado, walaa yadkhulu yuuna gelin fimaa yakhsiru bihi addunya waalaakhira,
waxa adduunyadii iyo aakharaba aad ku khasaarayso haba gelin kolka horeba. waqad saxa waxaa ka xasahay can Jundub radiallahu canhu annahu qaala inuu yidhi xaddu saaxiri darbuhu bisayf. saaxirku wuxuu yidhi waa in seef lagu dilo, xadkiisa xagga shareecada xukunkiisu waa in seef lagu dilo. وعن بجالة بن عبدة أنه قال أتانا عمر بن ويمد رضي الله عنه الله كرمه قبل موتي انتو ندمان بسنة انتو ندمان سنة كهر بن ويمد برغاس وحيري أن اقتلوا دلا كل ساحر ننكستو ساحر الدلا بوي وساحرة كبال كستو الساحرة هل الدلا بوي. رواه إمام أحمد باوري وابو داود. وعن وهب بن منبه قال قرأت في بعض الكتب وحنا قريبي الكتب تقار يقول الله عز وجل إنه ليه لا إله إله مجر إلا أنا موي إلا أنا موي ليس مني من سحر كسحر يعني قمد معها ولا من سحر له إياك الله سحره ولا من تكهن كعلم غيب كشيكته ولا من تكهن له أنا علم غيب كالله شيكته وعلم غيب كالله شيكته ولا واحد جيرين بانقرنا يا روح دو يراهو تحسنا واحد كسوق ليس كفرك ولا من تطير النشن برها باسيسته ولا من تطير له يكسن برها الله باسيسته. عن علي وحل وري بن أبي طالب رضي الله عنه قال وحيري الكاهن نيك كاهنكي ساحر وي نيك كاهن كليلا ساحر وي والساحر كافر نيك ساحر كي هنا كافر وي. علي بن أبي طالب بالرنتا لغا وريمنيا رضي الله عنه الله كرمه صحابته ودي جدا inay kaaleenayaan. وعن أبي موسى وحال قوري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحيري ثلاثة سدح لا يدخلون الجنة سدح روح جنة مقلان مدمن الخمر نينك خمرة لازمة أو خمرة ونعبة كاس جنة مقلو نينك خمرة لازمة مدمن الخمر وحال لوجه جدا نينك مركز تخمرة ونعبة كاس جنة مقلو مركز. طيب وخمرته دوح إلهي حرمي ويجي إلهي سبحانه وتعالى وحو حرمي أياد عبيسا. أوكي وقاطع الرحم رحم كيس نينك قويانا جنة مقلو ومصدق بالسحر السحر كان نينك رميانا اسنا جنة مقلو. رواه أحمد باوري في مسنده إمام أحمد باوري مسند كيسا كتابك مسند كليلاب كوري وابن حبان نوري وفي صحيح كتابك صحيح والحاكم الحاكم نوري. kolka xadiidka ay culimmadu wariyeen imaam axmed wariyey maaragtay waad ujeedaa waana saddex ruux janno ma galo yaa nabiga laga warinaya. khamrada ninka addicted ku noqda marka khamkas khamr u nacba qaadicu raxim ninka raximkiisa gooya iyo ninka uu musadiqun bisixri ninka sixirka rumeeya. وعن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود waxaa laga wariyey marfuucan xadiid marfuuca in الرقى waxyaalaha la isku tuftafo buu yidhi watamaa'imu qardhaasaha la isku xirxidho tiwaladu waa ninkuu naagtiisa la jeclaysiiyo ama la nacbaysiiyo shirkun intuba waa gaalnimo yidhi. رواه ابن حبان باوري في صحيح والحاكم وصححه على شرط البخاري شيخين. التمائم توحى لوجه جيدا دمع التميمة وهي خروزات وحيالا لقرقري أهيد وحروزات يعلقها الجهال أي جهال تكحر الجرين على أنفسهم نفتوذا يو أولادهم عرورتوذا كحر الجرين ودوابهم حبويان كوذا يزعمون واحد شيغان جرتين الشيغانيين يعني هو اسكباني ترد العين عينتين يعلسوه. وهذا كاسي من فعل الجاهلية جاهلين تفعل كودوي ومن اعتقد ذلك ذلك أرنتها ننك الرميان فقد أشركه قالوي. وتولد واحد لو جدا نوع من السحر وي وهو تحبيب المرأة إلى زوجها قبل أن كذا لجعلسية وي قبل أن كذا لجعلسية وي وجعل ذلك من الشرك الاعتقاد الجهال وحنا شحر محل وقد شركي لاعتقاد الجهال توحي اعتقاد جرين أن ذلك يؤثر أرنتاس إني wax تأثيرين كرتو بخلاف ما قدر الله تعالى يو قدر كينا درساكو بيني. قال الخطابي إمام الخطابي وحجري رحمه الله والله نحرسته وأما إذا كانت الرقية هدي تفرد تهي
min alqur'aani bilqur'aani hadday tahay haddaad qur-aan dadka ku tufayso ow biasmaa'i illaahi tacaalaa ama magacyaha ilaahay haddaad ku tufayso fa hiya mubaaxatun way bannaan tahay lianna nabiya sala allahu caleyhi wasalam nabigu kaana yarqaa wuxuu ku tufi jiray alxasan xasan buu ku tufi jiray walxusein xusein buu ku tufi jiray hadday bukoodaan radia allahu canhuma qur-aan buu ku aqrin jiray oo muxuu odhan jiray sidan ducadan uu ku aqrin jiray acuudukumaa waxaan idinka magan geliyay uciidukumaa bikalimaatillaahi kalimooyinka ilaahay baan idinka magan gelinayaa attaamati ee taamkaa min kulli shaydaanin shaydaan oo dhan wa haamatin haama shaydaan iyo haama haamadu waxa weeye waxyaalaha hawayaan ay aaminsanaayeen buu ahaa hadduu gurigiisa soo agtaago inuu ama ruux dhimanayo yay aaminsanaayeen min kulli shaydaanin wa haamatin wa min kulli caynin il kasta laamatin il kasta oo ku duraysa ama ruux macnaha ishiisa kugu duraya kharajahu alxaakim fi mustadrak fi xadiidi ibn cabaas wasaxaaxu calaa shardi sheekheyn nacam balidaalika waa ujeedaa tani waxay ka mid tahay waxyaalaha ducooyinka ta'hiir kale ee maaraha waxa weeyaan ruuxa muslimkaa ka difaacaya shaydaanka sharka iyo sixirka yay ka mid tahay culimmada marka muslimiintu wax badan bayay ka hadleen sixirka xukunkiisa axkaamtiisa way ka hadleen waxoogaa haddaan basti kusii samayno aaraada qaal culimmada qaala imaamu maalik wuxuu yihi raximahullah imaam maalik wuxuu yidhi assaaxiru ruuxa saaxirka aladii yacmalu asixra sixirka samaynaya walam yacmal dalika gayruhu huwa mithlu aladii qaala allahu tabaaraka watacaala walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq fa araa waxaan arkaa buu yihi an yuqtala in la dilo idaa camila dalika an yuqtala idaa camila dalika huwa nafsuhu hadduu arrintaas sameeyey in la dilaan arkaa buu yidhi marka imaamu maalik waad ujeedaa wuxuu yidhi hala dilo wa qaala ibnu qudaama wuxuu yidhi raximah allahu tacaala waxaddu saaxiri alqatlu saaxirka waa in la dilo saana ibnu qudaama yidhi ibnu qudaama almaqdasi kitaab weyn buu leeyahay wa qaala alqurdubiyu qurdubi wuxuu yidhi ikhtalafa alculamaau culimmadu waxay isku khilaafeen fii xukmi saaxiri lmuslim ka muslimka ah xukunkiisa wadimiyu fadahaba waxaa tegay dimigu waa dadkii ku dhex noolaa muslimiinta fadahaba maalik wuxuu ku tegay ilaa ana almuslima idaa saxara hadduu ruux muslimi wax saxro binafsihi naftiisa wax u saxro bikalaamin hadal uu ku sixro yakuunu kaafiran kufran muu noqonayaa yuqtalu waa la dili walaa yustataabu toobana laga dhageysan maayo walaa tuqbalu towbatuhu toobadiisana la aqbali maayo liannahu amrun yastatiru bihi kazandiqi wazaani waliana allaha subxaana wa tacaala sama sixra kufran ilaahay sixirka wuxuu ku magacaabay kufri wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur marka waa ujeedaa meeshan falaa takfur baa la yidhi macnaha yay dheheen waa haddaad sixirka isticmaashay dee kaafir baad noqonaysaa wa qaala ibnu mundir ninka la yidhaha wuxuu yidhi idaa qara'a arajulu biannahu idaa aqara markuu qiro arrajulu biannahu saxara bikalaamin hadal hadduu wax ku sixray yakuunu kufran gaalnimuu noqonayaa wa wajaba qatluhu in la dilana waajib bay tahay in lam yatub hadduuna toobo keenin wakadalika low habata bihi bayinatun wawadacat albayinatu kalaaman wasafat albayinatu kalaaman kufran hadday lagu maqraati kaco hadal cad oo kufriya isagoo sameynaya waa gaal baa layidhi waa la dilayaa qaala alxaafid ibnu kathiir wuxuu yidhi waqad istadalla biqowlihi tacaala buu soo deliishaday aayaddii walow annahum aamanuu waataqow lamathuubatun min cindi illaahi khayrun low kaanuu yaclamuun aayaddaadu soo deliishaday ninka ku taga ilaa takfiiri saaxiri kamaa huwa riwaayatu can alimaam axmed sida laga warinayo kaafirka haddii saa uu ruux ku tago ibnu xambal wadaa'ifatun min asablab wa qiila bal laa yakfiru walaakin xadduhu darbu cunuqihi kalima rawaahu imaamu shaafici wa axmed qaalaa waxay dhaheen akhbaranaa sufyaan can camri kataba cumar ibnu khadaab radia allahu canhu uqtuluu kula saaxirin wa saaxira
cumar bin khadaab waa kan gordu sheegnay wuxuu yidhi kul ruux kastoo wax sixra oo gor dumar iyo ragba hala dilo faqatalnaa 3 sawaaxira 3 sawaaxir baanu dilay buuri waqtiga iyada khulaasadu waxa weeyaan khulaasatul culamaa aqwaal badan baa kusoo aroortay wayatadixu bimaa amara ana jumhuura alculamaa culimmada badankoodu yaquuluuna waxay leeyihiin biqatli saaxiri saarixirka in la dilo ayay dheheen inuu gaal yahayna dee waxa weeyaan aayadaha qur-aanka kolkaa daahirkooda fiiriso way caddahay weeyaan marka sixirka shareecadu horta halkaasay marisay see la isaga daweynayaa su-aashaad isweydiin kartaa waxa weeye kayfa sidee la isaga daweyn karaa hadduu ruuxa ama la isagaba difaaci karaa ka horba waxaa ku soo aroortay nusuus badan yacni ruuxu sixirku iska ilaalin karaa oo waxa weeye wuuna iska daweyn karaa waxa u horreeya waxa weeye inuu ruuxu sixirka kolka horeba qabla wuquucihi intuuna dhicinba inaad iska ilaaliso seed isaga ilaalinaysaa lamber 1 kow alqiyaamu bijamiici alwaajibaat wa tarku jamiici almuxaramaat watawbatu min jamiici sayi-aat inaad ilaahay u toobo keento weeye si aad sixirka difaac uga hesho oo una sixirba kugu dhicin marka u horeysa